أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد. الحمد لله رب العالمين إلهي بمهضر نسكله بفضله وكرمه وإحسانه ولطفه وقوته وحيلته إنك يلد الإسلام وكولا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا ليال ما أنت وحين أرتدى وقيبلنا عيدودي أرتدى سمركا ككوبا هبليا إنما هبلو هنا إجار نقونيان بقول سجاشن يشن إنما دنا نقونيان لا بقول لباتني ستيت. الحمد لله رب العالمين وحن مركب كباد مهنق يا إلهي سبحانه وتعالى مركب لبادنا وحن مهنقنا والدين تا أنباه بلا هو ضاله السنة والبلد قرب تاجن أرضي هذا الكلاهي برنيسة عيد هذا مري يلا بي سدحبون وهم بلييننا وحن لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى أياك صدقتين خير أدوين وأهل صدقة ولا ليال مركا inta laga yimaado waxaan ku dhex jirnaa ayaamihii khayrka badnaa ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala weynoo tilmaamay Ilaahay leeyahay wal fajri wa layaalin 'ash ayaamaha khayrka badan la wixii la bixiyana Ilaahay nabigeenu sidoo sheegay sallallahu alayhi wasallam waa la sii laban laaba san markii hore ayaamaha kale aan loo laban jirin ayaa loogu laban laabayaa qof walba amalka wanaagsan uu qabtay hawlaha waxaan leeyahay marka ani allakum waan idinku habalyeynaya waxaan kaloon halkan uga hambalyeeynaa waalidiinta ardayda macallimiinta iyo dhammaan cid kastoo ku lug leh madrasadan iyo arrimaheeda aad iyo aad baan uga hambalyeeynaa waxa halkan aan jecelahay inaan faatixada uga marno sheekheeni weynaa sheekh aadan siiro raxmatullaahi calayhi rahmatan waasi'a faatixa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim maaliki yawmiddiin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم waxaan kaloo ku darayaa walaalayaal faatixada cid kastoo madrasada ku lug lahayd iyo masaajidkan ay ka tahay Caasho Maxamed Jaamac iyo hablihii hoodaale wixii nool iyo wixii dhintay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa wixii dhintay inuu jannatul firdaws ala ku macsuumo wixii nool waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadkooda bila macsiya Ilaahay qacanta midigta uga dhiibo waxaan kaloo ku darayaa macallimiinta sharfan ee karaamaysan aadiyaad ee madrasada aadiyaad dadaalkooda ugu laban laaban ee galin hore iyo galin dambaba u laban laaban sidii dadaalka Ilaahay iyo diinta Ilaahay ay kor ugu qaadi lahaayeen. Assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. markii hore waxaynu horta u mahadnaqaynaa Allah Khaaliqa ee inoo nimceeyay ee ina siiyay nimcadan islaamnimada ee maanta aynu halkan ku fadhino islaamnimadu waa tan maanta halkan ku fadhino ee aynu u fadhino diinteena qaaliga ee Ilaahayna siiyay barashadiisa ku dadaalkeeda
iyo ku camal falkeeda mar labaad waxaynu mahadnaqaynaa dhammaan eheliyadii ka soo qayb gashay xafladan ama khayrigani ee u soo ciidsiisay ubadkan maanta quruxda badan ee mar walba u diyaarka inay ciidsiiyaan oo ay ka farxiyaan heeganka u ah oo ah kuwa hantidoodii iyo maalkooda iyo maskaxdoodaba gelinaya mar walba meel adduun la geliyana waxa ugu khayr badan in diinta la geliyo waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba Allah idinku bedelo wax khayr qaba Allah ugu bedelo waxa kale oo halkan uga ducaynaynaa insha Allah taala sheekheeni weynaa ee sheekh Aadan Siiro oo ahaa aabihii hogaamiyay aas-aasay madrasadan iyo ubaxana maanta aynu arkayno oo juhdi iyo dadaal badan soo galiyay insha Allah waxaan leenahay naxariis waasaca Allah siiyo qabriga Allah u nuuro cadaab qabriga Allah ka badbaadiyo ilaahay qabriga waasaca uga dhigo godgodadkii jannada Allah uga dhigo amalkii uu soo qabtay uu ku soo dadaalayna ilaahay khayr ha ugu bedelo ilaahay khayr ha ugu bedelo waxa kale oo ku dareynaa hooyadii inoo ukantay masaajidkan iyo madrasadan ee dhistay oo aynu leenahay naxariis waasaca Allah siiyo naxariis waasaca Allah siiyo khayrkaas ay shaqaysato khayr la shaqaysto kii ugu weynaa bay shaqaysatay khayrka Allah ku abaal mariyo Allah ku abaal mariyo ilaahay qabriga ha ugu waasiciyo qabriga Allah ha ugu nuuro ilaahay janno firdawsaha ku geeyo waxa kale oo inuu ducaynaynaa hablihii hoodaale ee hawshan badan ku soo jiray intii dhimatay oo dhan baynu ducaynaynaa ilaahay naxariis waasac iyagana Allah siiyo naxariis waasac Allah siiyo qabrigana Allah ha u nuuro qiyaamahana Allah ha u shafeeco ilaahay meel wanaagsan ha mariyo waxa kale inuu ducaynaa insha Allah hablaheena jooga ee ka tirsan hoodaale ee ay ka mid yihiin foosiyay iyo hablaha dhammaantood la socda waxaynu leenahay jazakallahu khayra ilaahay amalka aad qabanaysaan khayr Allah idinku bedelo ilaahay ha idinku gargaaro ilaahay halka aad ka soo saaraysan wax khayr qaba Allah idin geliyo aakhiriya dunyada Allah idinku wanaajiyo ubadkana Allah idinku wanaajiyo ubadka diinta Allah idinku ku tarbiyaysan diinta ku dhaqma Allah idinka yeelo ubad wanaagsan oo saalixiin Allah idin siiyo ilaahay ha idinka dhiga saalixiin ubadkaas aad u shaqaynaysaan oo diintaas aad u shaqaynaysaan wax khayr qaba Allah idin siiyo waxaanu leenahay ilaahu khayr ugu bedel oo halka ka soo saareen wax wanaagsan Allah u gali ilaahu ugu naxariis waasaca ku sii waxaynu halkan uga ducaynaa kala dhamaanteeba wixii naga dhintay oo dhan naxariis waasaca Allah siiyo islaamkana Allah xoojiyo islaamkana Allah xoojiyo diin baynu shaqaynaa diinta Allah xoojiyo insha Allah wax kale ugu dareynaa inuu ducaynaa meel kasta waxay leedahay hoggaan inamadii ka soo shaqaynaya khayrkan macallimiinta mushaarkooda adduunkay soo bixinayaan wax khayr qaba Allah ugu bedelo waxay soo galiyeen adduunkoodii bay soo galiyeen wax khayr qaba iyagana Allah siiyo ilaahay dunyada ha ugu naxariisto arsaaqada Allah ugu waasiciyo halkay ka soo saareen wax khayr qaba Allah ugu bedelo macallimiinta dhigaysa madrasadani ee habeen iyo maalinba u taagan ee heeganka ee halka maanta dadaalkaasi soo gaarsiiyay ardaydaas ay marayso ee dacfadii labaad ay imka ka baxday tii saddexaadna ay imka baxaysay ku jirto macallimiin baa soo gaarsiiyay iyagana ilaahay abaalkooda ha siiyo ubadka soo barbaarinaysa guriyaha ka soo saaraysa soo hagaajinaysa ilaahay iyagana ha u gargaaro dadaalka waxaan leenahay daan waalidinta war dadaalka aynu sii kordhino diinta ha loo dadaalo oo ha la kordhiyo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waan salaamayaa rag iyo dumar macallimiinta waalidiinta ardayda dhammaantiin waan salaamayaa waan ku faraxsanahay ma sha Allah tabaarakallah inta soo badateen ma sha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan idin ducaynaynaa insha Allah anaga noo duceeya waxaan halkan uga ducaynaynaa sheekheeni inoo muxuu haayay sababta lahaa inoo furay maxadkan ilaahay waxaan leeyahay jannatu firdawsa Allah ka waraabiyo qabriga Allah waasiciyo marxumadii inoo masaajidkan inoo dhistay Caasha Maxamed Jaamac eedaday waxaan leeyahay qabriga Allah waasiciyo walaasha Jawaahir oo ka dambeysayna ilaahay ha u naxariisto hooyaday baa raxmadoo iyaduna midka ahayd oo dhimatayna Allah u naxariisto oo aad noogala qayb gali jirtay xasanaadka caruurta dhammaantood waxaan leeyahay jannatu firdawsa Allah geeyo
intii kale muxuu ahay la shaqaynaysay macallimiinta aad ugu tabcay caruurtaana waxaan leeyahay Allah barakeeyo waalidiinta ku tacabtay soo saarta maalin walba dabada ku jirta aroortii soo kaleysana ilaahay ha barakeeyo waxa kale halkaan ka xusayaa hablaha Suudiga jooga ee Aamina Baashi garwaanka u tahay hogaaminayso waan soo asturteen qaybtii hablaha oo ay qayb xaalada ka qaadateen oo maxay ahayd sanadka naga kala gooday ayna oo dadku soo asturteen waxaan leeyahay ilaahay haydaasturo ilaahay haydaasturo ilaahay ka haydi barakeeyo qof walba ku ciidan ilaahay ka ciirtiro waan soo duceynaynaa artayda qalanqooyinka aynu ka sadaqaysanana ilaahay haynaga sii ajar fara badan anagana noo duceeya caruuray dabadday naga joogaan in ilaahay siinaasoo kale quraanka noo baro insha Allah way bartaan laakiin ilaahay ku sii adkeeyo noo duceeya anagana waxaan kula dardaarmayaa reer abaarso masaajidka dayactirkiisana inay maaragtay aad iyo aad iyaguna wala socdaan oo waalidiintu santina Allah ka dhigay bal wuxuu ugu tala galaan masaajidka markuu wax ka noqdo inay dayactirkooda ay ka qayb galaan insha Allah maanta waxaan ku faraxsanahay walaashay Faayisa oo hablaha muxuu ahaayay reer Holane hoodaada kamida oo sheekadayadii ayaa nala socota iyadana idigu dhiibaya aadna waan idin salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كل جيم بوحد الله هيدك السلام يا صلاة الإسلام كي قالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما هذا الكي إن بدن بالهادلي حان بدن أون أنا كنا كدر يا مشرتو waxaan idinku darayaa horta waa loo duceeyay sheekheeni sheekh aadan siiro ilaahay naxariis waasica sunnaha uu inoo suneeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaal marinaya jannaatul firdaws al-a'la waxaa kaloo inuu ducaynaynaa xaajiyadii caasho jaamac oo masaajidka inoo dhistay iyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqatun jaariya ilaahay miisaan xasanaataha ugu daro intii kale oo baar ugu horeyso iyo dhammaan dumarka kale ee wixii ka qayb qaatay macallimiinta oo iyaguna rasuulku calayhi salaatu wasalaam yiri khayrukum man allama alqur'aana wa 'allamahu yaani waxa idinku khayr badan qofka qur'aanka barta ee waxna bara marka iyagana caabalka weyn ee caruurta kalaamkii ilaahay sida ugu xafidsiinayaan ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay khayrku ha siiyo inta kale ka qayb qaadata aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay 5 sanadood waan eegi jiray waan daawan jiray qalbigaan idinkala jirno idinkala joognay maantana inaan idin mid baan ku faraxsanahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin alxamdulilaahi alladii hadaana lihada wama kunna linahtadi lawla an hadaana allah ilaahay hadaanu inagu hadaynin ma inaan ku hadaysanaanen kulligeen bacamalka khayr kale ilaahayna kuwa ku sii anfaco ee ku sii socdo ee khayrka quraanka ilaahay siiyo ee barakada quraanka ilaahay siiyo annagana dhulka yaani qurbaha ee diinteeni ku qariibka ee caruurihi naga joogaan oo ugu duceeya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana inuu sidaas oo kale quraanka noogu baro khayrka Allah idin siiyo waa jiilashii wadanka bari hogaamin lahaa waa umuhaadkii bari iyo abayaashii bari tarbiyada islaamka markay si fiican u qaataan wadanka dhow wax ka bedeli lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiisa idin siiyo qof kastoo ka shaqeeya khayrkaas iyo dumar badan oo annaga halkaan la jooga oo inta yar ay soo bixinayaan laga yaabo in ehelkoodii u baahan yahay laakiin haddana fadliga quraanka iyo barakada quraanka iyo nuurka quraanka doonaya iyagana ilaahay ka abaal mariyo kulligeen ba ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga jisaaysiyo idinkana jisaayga ugu badan baad leedihiin Allah idinku xafido ilaahay idinku xafido ilaahay idin fududeeyo hooyooyinka ilaahay hawshooda u fududeeyo caruurta ilaahay quraanka u fududeeyo macallimiinta hawshooda Allah u fududeeyo inta mas'uuliyiinta ah ee wadoodan Allah u fududeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وادي سلام يا معلمينتا والدينتا أرضيدا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
halkan khayr badan baa yaala nimcaad taala wallaahi waan ku farxay aad iyo aad baan ugu farxay ilaahay ka tisaaysiiyo hablaha hoodaale ee reer holan ay ka mid yihiin Foosiye Maxamed Xasan iyo Faayisa Aadan Furre iyo inta kalena magacyadooda halkan ku soo koobi kareynin jisaa'iga ilaahay baa idinka abaal marin doona awlaada Allah idin geliyo Allah idinku barakeeyo caruurtana waxaan ilaahay uga baryaa inuu ilaahay kuwii dalkooda iyo diintoodaba anfaca ilaahay ka dhigo waalidiintana Allah u sakhiro shaqadan siirana waan u ducaynayaa isaga aasaasay aad baan ugu ducaynayaa ilaahay janno fardowsaha ka waraabiyo maxaan ku dhaday caasha jaamac ilaahay janno fardowsaha ka waraabiyo intii dhimatay oo dhan ay naga dhimatay ilaahay janno fardowsaha ka waraabiyo idinkana Allah idin barakeeyo